xogaye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Jamaal Jaamac Xamuud oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Ceerigaabo ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka isagoona sheegay in ay diyaar u yihiin xisbiyada mucaaradku balse aanu madaxweynuhu diyaar u ahayn waxana uu xogayuhu madaxweynaha ku canaantay xaaladda Sanaag Bari oo uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay ka maarantay waa sida uu hadalka u dhigay xogaye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Jamaal Jaamac Xamuud oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisa shada xisbiyadu diyaar bay xisbiyada mucaaradku waa diyaar laakiin madaxweynuhu diyaar ma mana qabo madaxweynuhu qabanayo doorasho saanteedina aanu ka maarko waxaad wadaadeen waxba dhamaanay hadda waa ogtiin anigu waxa ka soo jeedaa gobolka Sanaag waliba qaybta bariga halka lama gaari karo lagama bixi karo waayo waxa taalay madaxweynuhu ciidan buu qaaday waa ogeydeen wuxuu yiri ha bixeen naga bixeen uma baahnin dadka halka ma gaarin dagaal ku qaaday oo dagaal waa ogtiino hadaftoon dagaal lagu qaaday rag xoolahooda la jooga la soo qabtay ilaa hadda waa xidhan dabala xagar waa ogeydeen inta jeer lagu baxay oo dagaal lagu qaaday wax wada hadala oo uu furay iyo raali gelin ma jirto dabadna wax doorashan qabad waxa doorasho lagu qabtaa hadii dhibaatada taagan tahay aan la wada hadlin oo laga wada fariisan oo gogol la isugu iman waxa soo dhanba ka horeysay marka saasaan qabaa inaan madaxweynuhu diyaar u ahayn awdal waa ogtiin waxa ka dhacaya diyaar ma aha hadii lagu yiri naga baxaba hadii la yiri laga baxa waxa Soomaaliland waxay ku nabad yaana maashay wada hadal isu tanaasul wada fadhi waxa isu sheeg bay ku caana maashay halka soo gaadhay laakiin hadday taagan tahay kuma baahnay bax maxaa doorashada ka sheegaysaa doorasho la gaadha halka ma gaadhay lama tuurta lama dhaafi kare waxa soo dhan waxa ka horeeya xalilaadii la xalili lahaa isu imaatinkii wada hadalkii waxa soo dhan ka horeeya waxaasina ma dhicin waa ka hadleen oo yimaadeen wax badan baanu ka hadalay wax badan baanu niri madaxweynuhu wuxuu yiraahdaa markuu hadlayo laas qoray ilaa iyo sayla waa isku xidhan tahay waa dad Somaliland waa run laakiin tabashooyin badan baa jira saami qabsigii baa jira baaran sheerkiisii dhinaciisa wasiiradii wixii aanu lahaan jirnay wixii reeru lahaan jireen maanta ma jiraan waa ka baxeen meesha hal wasiir ku xigeen ba hadda matala meesha jooga wixii agaasimaashii guud waa baxeen intii uu meesha qabtay anaga waxa uu yiri ka meesha ma arki karo ma naqan meel wacdo ka soo madaxweynaha ma arki karo dadkaas dayacaada iyo hagrashada la hagraday xukuumadda maanta jirta ma tirinayna inay maamul gaarsiiso inay tagto inay xoog saarto laakiin markay ciidankii ku ilaalinayay lagu seexanayay na dhaafa iduma baahnine waa dayacaad iyaga ka timi mana ima jirin kala dhac baa la joogi jiray oo ay ka furnaayeen kastan ka furnaa kala dhac madaxweyne Ibrahim Cigaal intuu noolaa intii uu dhintayna baashu waa soo durkaysay waa taa maanta taagan inaan la dhaafi karin tuurta la dhaafi karin way labada dhinac ama koonfurta Sanaag ka noqoto ama bariga Sanaag ka noqoto waa taa maanta taagan taana waxaan u tiraynaa dhaliisheeda iska leh xukuumadda maanta joogta iska leh fogeynta iyo nacaybka ay dadka ku kala riday madaxweynuhu wuxuu isku qabsaday dal mid ah buu ka tagay ninkii hore markii hore waa taad maqli jirteen ninka la yiraahdo Riyaale waxay dal midaan idin diibay Silaayo waa ladnayd runtii Silaayo waa ladnayd rag maskax leh tal qaadanay rag baa la tilnay laakiin madaxweynuhu isaga taladii isku koobay kiligi Dirsaaq Sugulle codka bariga Afrika Ceerigaabo.